inta la xaqiijiyay 6 qofood ayaa geeriyootay 8 kale dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii ruux waxyaabaha qarxa suuq maqaayad ku taala agagaarka dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee General Kaahiye afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed gaashaan Sadiiq Aadan Cali Doodishe oo warbaahinta kula hadlay goobta qarxa ka dhacay ayaa sheegay 6 qofood ee geeriyootiin ku jiray qofkii isqarxiyay waxana uu faahfaahin ka bixiyay qarxa dhacay maantay ayaa qof ismiidaamiye ahaa oo naftahaliga ah wuxuu isku qarxiyay maqaayad ku taala degmada Xamar Shashab agagaarka dugsiga Akademiyada Booliska General Kaahiye Iskoola Bulutsiyo halkaas oo qofkii naftahaligaha ahaa uu galaaftay nolosha ilaa 5 qof iyo isaga 6daas qof ayaa maantay ku dhimatay goobtaas waxa ku dhaawacmay ilaa 8 qof oo kaleeto hadda ciidanka booliska goobta ku sugan ayaa gargaar caafimaad u fuliyay dadka shacabka ahaa ee goobta wax ka soo gaareen maqaaxidaas oo ah maqaaxid dadka shacabka u furan oo ay isticmaalaan ayaa naftahaliguhu u isticmaalay ismiidaaminta si uu naftiisa iyo nafta ummadda kale u qaribo qasaarahaas ayaa maanta meesha ka dhacay haddana goobta waxa ku sugan ciidanka booliska Soomaaliyeed si exhibitkii iyo cadaymihii iyo ijraa'aadkii looga baahnaa in la marsiiyo loo gudbiyo gargaara loo fidiyay dadkii shacabka ahaa ee goobta wax ka soo gaareen inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun Allahu naxariisto inta ku dhimatay inta dhaawacana Ilaahay ha u boogadhayo samri iimaan Allah ka siiyo dadkii shacabka dadkii qoysaskii eheladii ay dadkaas qoyskooda kamid ahaa wax ka soo gaareen dhacdii maanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka ku dhintay waan idin sheegay ilaa 6 qof 5 qof oo shacab ay qofkii naftii horaha dhaawacyaduna waa ilaa 8 qof oo dad shacab u badan oo maasantiin sidoo kale mid kamid ah dadka dhaawacyada fudud soo gaaray ayaa warbaahinta kula hadlay goobta qarax uu ka dhacay meesha meel oo maqaayad lagu shaahay ayaa ahayd markaas aan soo garay anigoo goobtii shaqeeyay mid rooba ayaa yimid roobkii markii yimid wixii meesha agaarkeeda marayaan meesku wada nimid mar baan ku war helnay qarax iyo muxuu ahay jugtiisi intii meesha joogtay wallahi iyo wax si wax u dhacay dad bashay kale la hadda saasi wax u dhacay ma dhihi kari waxaan aragtay marka dhimashiyo dhaawac meesha wallahi waxaan sheegay waa been dad asxaabteeda ah badan ayaa meesha wada joognay qaar waa la qaaday oo dhaawac waa lagu yiri qaarna waa inta hebel dhintana ma caday kariyo laakiin meesha waa aad u xoogan ilaa hadda dhagaha waxba ka maqlaayo waa iska dadka warkiisa qiyaasooya ma weey وحدل توصل مقلة ملا أركا واحد إلهي نموت الحمد لله أدي أدبان وفيعان ما شاء الله بعد قبليس قرح النوع وها مركا مجاري وها ما جاري ما أقام البنبال أو ماشي اللي أي تهاي مينا أي تهاي ينس خوف أسقر حياة معديك لكن جاري هذه وش ده وحوسه جاري الحمد لله وأنا في عنا يعني وحيرة فري وأنا ما شاء الله أنا وينهم حاجة سعودي مركا ماشي وحكي عين يا ماشي وحكي عين حاجة سعودي سعودي كوب شاهد كوب معاه شاي عاد مقايد شاي لو أنت قاعد لون قرب شاي لو قرب ciidamada ammaanka ayaa wada baaritaano kala duwan kuwaas oo ku xaqiijinayaan amniga caasimadda mahad mutawakkil Honkebel TV ma ogtahay macmiil in shirkadda Somtal ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai mobillo talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahabshiil ah oo ay lacag kugu jirto haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa in eheladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefonkaaga kadibna geli telefonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama bilaash wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiid lambarka gaaban ee 333